Hi guys, assalaamu calaykum. Waa aniga Cabdifataax Ibraahim, xagga nagala socotaana waa Somaltech. Maanta waxaan eegi doonaa cashar ka mid ah extra lessons-kana oo ku saabsan qaabka aad shirkadda Google-ka account-kaad ku leedahay aad iskaga delete garin karaysid ama services-kaaga aad u delete garin karaysid haddii aanad account-ka u baahnayn aad totally-ba u delete garin karaysid ayaan eegi doonaa. So waxaad soo furanaysaa browser-ka aad jeceshahay kadibna waxaad ku qori doontaa myaccount.google.com. Okay, inta marka ku qorto waxa ku soo bixi doona page-kan aad arkaysid. Okay, page-kan markaad aragtid waxaad dooranaysaa left hand corner data xagga ku qorantay data and personalization. Okay, inta markaad doorato waxa ku soo bixi doona page-kan kale aad isagana arkaysid. Hoos bay u degi doontaa kadibna waxaad tagi doontaa halkay ku qorantay delete services. Okay, inta markaad doorato waxa ku soo bixi doona page-kan aad arkaysid ee afarta section ka kooban inaad Google-kaaga services-kiisa delete garayso ama inaad delete garayso Google account-kaaga totally iyo inaad delete garayso data-da ama inaad u samayso plan ama aad u samayso plan. Kadib waxaan eegi doonaa balka data-da services-ka la delete garanayo. Services-ka inagu delete garaynayno laakiin waxaan eegi doonaa bal services-ka oo ku siiyo Google-kaaga ama services-ka aad delete garayn karayso. Okay, waxa ku soo bixi doona sida halkan ka arkaysid maxay ahaydey YouTube-kii waxba kuma upload gareyn waxa aid conversation baa ku yaala sidoo kale wuxuu ku recommend gareynayaa in aad maxay ahaydey haddii aad u baahan tahay in aad download gareysatid ka hor inta aanad delete garin services-kaaga ama macluumaadka services-kuna waxa weeye waxyaabihii uu ku qabanayay Google-kaaga ama aad ku isticmaalaysid. Okay, one more time waxaan eegi doonaa haddaba Google-ka maanta aynu eegina waxa weeye qaabkeebaad Google-kaaga u delete garan karaysaa Google account-kaaga qaabkeebaad u delete garan karaysaa. So waxaad ku dhufanaysaa talabaad ee delete your account-ka ku qoran tahay. Okay, sidoo kale waxaad gelinaysaa password-ka more time. Password-ka marka geliso kadib waxa ku soo bixi doona macluumaadka xaggan ku yaala. Okay, wuxuu ku oranayaa si carefully u akhri macnaha inaanad aan ku soo koobo waxa weeye in aan maxay ahayd dhammaan wixii kugu jiray oo dhan ama link emailada la xiriir jirtay waxyaabahaas oo dhan conversation-kaagii dhammaan information-kii kugu jiray oo dhan maxay ahayd account-kaas aad delete garaysay in ay wuxuba wada delete garaysmayaan. Okay, so hoos bay u degi doontaa sidoo kale YouTube-kii aad ku lahayd calendar-kii maca wax everything wuu delete garaysmaya. Okay, so waxaad saari doontaa xaggan waan fahmay dhammaan problems oo dhan macnaha wax walba waan fahmay kadibna waxaad dooranaysaa delete account. Okay, marka taabato delete account totally wuxuu ku saari doonaa message yar oo ku sheegaya in account-kaagii Google-kii macnaha ama maxay ahayd ku lahayd account-kii la delete gareeyay isaga dhammaan iyo wixii information ku jiray. Okay, qaabkan waxa weeye waa qaabka casharkan waxaan u sameynay haddii aad tusaale kale u baahan tahay inaad Google-kaaga Google account aad leedahay aad iska delete garaysid oo aanad u baahnayn inaad delete garan karaysid oo aad ka saari karaysid waayo dadka badan waxay aaminsan yihiin inaanad delete garayn karayn account-kaad ku leedahay waa delete garayn karaysaa account-ka aad ku leedahay maxay ahayd Google-ka marka casharkeenu maanta xaggaas baan uga yeeyay isaan casharo kuwan la mid u sameeyno fadlan ka caawisana subscribe and share iyo maxay ahayd inaad asxaabtaada la wadaagtid waa mahadsantiin.